doorasho ayaa dalka dhici doonto doorasho hal qof iyo hal coda sanad ayaa idin dhiman waxaad ku soo moodeen adiga iyo xukuumadda ra'iisul wasaaraha inaad soo wada shaqayseen oo xasilooni siyaasadeed inaad gaadheen doorashadan aad ahaan mis soo sharaxi doontaa xagga xukuumadda ra'iisul wasaaraha oo kalena ma noqon doontaan waxa weeye sida hadda tiim u tihiin inaad tiim uga soo wada qayb gashaan doorashada soo socota runtii waxaan bogaadinayaa aan u hambaleynayaa aqalka labada aqal golaha shacabka aqalka sare sida ay u soo ansixiyeen ama u soo gudbiyeen sharcigan runtii sharcigan waa sharci taariikhi ah oo muddo 50 sano ka badan ay ahayd markii ugu horeysay noqon doonto markii ugu horeysay shacabka Soomaaliyeed ee u dareeraan sijooyinka u dareeraan oo qof walba uu codkiisa siiyo xisbiga uu rabo inuu isleeyahay dalkan waa badbaadin karaa ama shakhsiyaadka ay rabaan ay u arkaan dalkan inuu maslaxadiisa iyo dantiisa uu ka shaqeynayo waxa weeye waa awood kusoo korortay shacabka Soomaaliyeed oo muddo dheer laga hayay weeye waan ku faraxsanahay anigu inaan taariikhdan aan qayb ka ahay ama aan hadda u ahay madaxweyne hoggaan u ahay inaan gaarsiino shacabka Soomaaliyeed qof iyo cod dastuurka ku taala wax dastuuri ah waxaan ka talaabsanayna ma aha runtii 2017 electionkii ahaa ergooyinka ma ahayn wax waafaqsan sharciga dastuurka ma ahayn kii horeeyana ma ahayn marka aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay in shacabka Soomaaliyeed ay u helaan awoodooda loo soo celiyo ay u dareeraan doorashooyin anagu xisbi yaan sameynaa insha Allah haduu la yiraahdo xisbigana wuxuu noqon doonaa xisbi dawladda prime minister aniga aan ku madiisanahay insha Allah haduu la yiraahdo xisbiyada kalena waxaan u rajeynayaa iyaga naftooda inay ka qayb galaan oo dadaalaan si ay dalkan u noqdo dal runtii la jaan qaadi kara siyaasadaha casriga ee adduunka ka jira oo multi party system la yiraahdo ama qof iyo cod la yiraahdo